كن نافعا وفق مسلم كاهين النغضة قف واحتره waxa uu qofku qabanaya waxay ku xidhnaan doontaa mas'uuliyadiisa iyo inta uu awoodo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu tilmaamayaa almu'minu ya'laf wa yu'laf ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس حديث كاسي الشيخ الألباني حسن كنت المامي والنبي عليه الصلاة والسلام قفك مؤمن كاهي ومد لقو سوهرته يعني دتكو أي قصة طلقلان أما ومد دتك صوت ضمة سود دوية سنة اللي سود دوية dadka badhba haddaad aragta laga weecdaa sharkiisa dadka badhna waa lagu soo hirtaa meeshu joogo qofka mu'minka ah nabigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay qofkaasi lagu soo hirto waxaanu sheegay qofka dadka sharkiisa iyo dhibtiisa dadku ay uga cararaan inaanu khayr lahayn dabeetana nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxa u khayr badan ka u nafciga badan ka u waxtar badan dadka waxa u khayr badan ka u waxtar badan nabiga calayhi salaatu wasalaam baa mar kale isagoo jooga waxaa la keenay la sheegay nin dibqallooc qaniinay markii dibqallooc qaniinay ayaa nin yimo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo naga qoladayadu waxbaanu tufnaaye dadkan dibqallooca wax lagu tufaanu naqaanaa ku akhrinaaya ma ku akhriyaa bal soo bandhig buu yidhi waxaanad akhridaan muxuu yahay wixii buu sheegay dabeetana wuxuu nabigu yidhi ba'si kuma jiro tanaad sheegtay man istataaca minkum an yanfaca akhaa falyafcal ciddii awoodda walaalkii inuu wax taro ha yeela buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ha taro حديث الصديحات أنت المامنا وحي هاي نبي عليه الصلاة والسلام نبوي ميوح كيري يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله ضدك يا ألا وجعلي هاي أعماش السمحة إلى هاي وجعلي نبي عليه الصلاة والسلام حديث كانوا حسن لغيره والشيخ الألباني كل شيء جيو النبي يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ضدك إلهي وحوق عليها كوا ضدك وحتر بدن أعماشنا وحلو عليها يقول النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام سرور تدخلها على مسلم قف مسلمات فرحت جلسه كفر حسد تكشف عنه كربة نبها ستوات كفيدد أو تقضي عنه دينا أما الدين يقول يا تكبي حسد أو تطرد عنه جوعا أما قاجات كقودسد ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا النبي عليه الصلاة والسلام إن قف مسلمة سئام باهديس ولقده راعه أيان كجعلها مساجد كي كان ومسجد المدينة إن بالكو اعتكافه وحن كدور بدا يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام قف مسلمة باهدي سينا قده ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا قفك عردي سقر صده سوى أودي كرين قده أرقده كان إلهي قلبه سمالنت قيامه رالي هنشيو كبوحية قفك ولالك الراعة حاجديسا إلا أنتو وقود يراعة إساقنا مالنت قيامه أنا ابن آدم كالصقم كرين با إلهي سبحانه وتعالى قمديسا سوغا سدحدن حديث أنا أخريي
alfaadooda aan idin sharxay waxay wadaagaan oo sheegayaan qofka muslimkii inuu qof waxtara noqdo waxay sheegayaan acmaasha alle u jecel yahay inay tahay dadka kuwa ilaahay ugu jecel yahay inuu yahay dadka ka ugu nafci badan nafciga inuu ka warramaynaa ama nafci adduunyo ha noqdo ama nafci aakhira ha noqdo bini aadamka waxa ugu nafci badan ambiyada iyo rususha waayo ilaahay baa wuxuu soo dhibay waxay aadanaha ku badbaadin lahaayeen adduun iyo aakhiraba oo markastoo bini aadamku uu qalloocdo oo jidka saxdaa uu ka lumo waxaa la soo dirayay rasuul ama nebi kaasoo loogu talagalay dadka inuu saxo oo noloshooda adduunyo wixii ka qaldamay inuu u toosiyo noloshooda aakhira wixii ka qalloocdayna inuu u toosiyo idan nafciga qofka muslimkaa laga rabo inuu yeeshaa waa nafci adduunyo iyo nafci aakhiro wixii uu tari karaba nafci aakhira u weyn oo ilaahay markuu dhaartay wuxuu yidhi walcasri ina alinsana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw biالsabr ilaahay intuu dhaartayba wuxuu ku dhaartay bini aadamku inuu khasaare ku sugan yahay waxaa ka soo reebay cidda aan khasaaraynini inay tahay dadka laga hela iimaan iyo camal saalixa iyo xaqoo ay isfaraan iyo wixii dhib xaqa ka soo gaadha faritaankiisa oo ay ku sabraan cidda caynkaa samaysaa waa cidda khasaaraha ka badbaaday idan dadka waxa u anfac badan leh khasaaraha la hubo ciddii bini aadamka ka badbaadisa khasaaraha la hubo waa khasaaraha ilaahay uu ku dhaartay walcasri ina alinsaana lafii khusr ilaahay baa ku dhaartay subxaanahu wa tacaala haddaba waxaan leenahay dadku haddii qof waliba shaqada inta ku beegan uu qabto noloshu waa wax fudud oo la habayn karo haddii dadka inta ugu badani inta iska fadhiistaan dad gaara la yidhaahda waxa qabtaan ummaddaasi ma horumarto مثلا النبي محمد بركو جوغي عليه الصلاة والسلام صحابو الدين وشيغي مية يسكفر ديانو يدهدين دين نبي با ميشي جوغا مايا إيانا ويسي شيغيين سيدا اوغين باي دمان تود شقا هيين دمان تود شقا داي قبتين مثلا أبي بكر عشرة المباشرين رقي هو وينان رقم إذا وحا كاني أبي بكر بس هو إسلامي ونبي كان عليه الصلاة والسلام نبي نوصي هرمري صحابة nin waliba shaqada intuu garanayay buu qabta mid dagaal ka qayb gala mid hogaamiye dagaal noqdo miya waligan kutubta xadiiska ku aragteen an Khalid bin Walid sama maydan maqal muxuu ku caan bahay Khalid oo xadiis warinaya ma maqasheen an Khalid radiyallahu anhu la leeyahay lagama yaabo inaad aragto haddana cinda almuslimiin waa rajul macruufa cinda almuslimiin daaya taariikhda maanta bini aadamka kuliyaadka istaraatiijigada ee casaakirta khidadkiisii baa lagu dhigaa wax ka mid ah wixii uu ummadda u qaban karayay buu qabtay kuwii cilmiga bartay waxay ummadda u qaban karayeen bay qabteen kuwii tala garanayay waxay ummadda marka qof waliba marka uu ku tala galay inuu wax qabto way guulaysataa haddiise maalan diinta faafinteeda aad tidhaahdaan aw hebel iyo aw hebel baa mas-uulka ah dee diinta dadka inta kalena way sugayaan dee diini faafi mayso aw hebel intuu gaadhaya dadkii muslimiinta soo islaamayay markuu 3 casho nabiga la joogaan buu baxayay dabeetana isagoo qabaa'il dhan wado soo islaamiyo keenayay dadka saymiga jooga 40 sanaad muslim ahayd weligaana qof maad keenin 40 sanaad muslim ahayd waayo adigu in xilkuba ku saarayay baan rumaysnayn nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ku tilmaamaya dadka waxa u khayr badan dadka u nafciga badan leh u waxtarsan waxtarkaasi wax kasta oo bini aadamka la taraa waa waxtar xataa xayawaanka waxa la taro xataa xayawaanka xadiista waa ku aragteen qof dumaroo la yidhi ay waraabisay baa ilaahay ugu dambi dhaaf ay bay waxtartay dabeetana appreciation waa la qiray waxtarkeedii fashakara allahu lahaa baa layidhi ilaahay baa uga mahadnaqay eygay waraabisay
nebi yuusuf baan qisadiisa markaa dhowr shay ka tilmaamaya maadaama waqtigu kooban yahay. nebi yuusuf iyadoo la dulmiyey oo dembi aanu gelin lagu qaaday iyadoo la og yahay inaanu dambaabin uma badaa lahum min bacd ilaahay wuxuu tilmaamayaa markay u caddaatay inaan waxba samaynin bay xukumeen way xabsiga dhigeen. muu odhanin nimanka ay xidhay waa gaalo xabsigoodii baan ku jiraa nimankaa wax damboona maraya naga dhexeeya ma jiraan. إلهي وحليه سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. لبويلو كم ددتك حبسي غلق علي أيا أيمي ريا أي كسر رياضين بيلي النوفصر. riyada waa la fasira waa cilmi la barto waana dhici kartaa riyadu sidii aad ugu riyootay practically inay iyadiiba noqoto aan ta'wiil u baahnayn. waa dhici kartaa inay mid ta'wiil u baahan tahay. waa dhici kartaa in shaydaan iyo naftu kugu cayaareen oo waxaad ku riyootay baanay wax qiimo la ahayn. si kastaba ha ahaatee nebi yuusuf riyay u keeneen riyadaa noo fasir bay yidhaahdeen maxay raaciyeen innaa naraaka min almuxsiniin isagoo xabsi ku jira ayaa waxaa la leeyahay waxaanu kuu aragnaa qof wax tara oo ixsaan sameeya inaad tahay. macnaheedu waxa weeyaan xabsiga gudihiisiibu wuxuu ku caanbaxay qof muxsina oo dadka wax taraya. wuxuu tijaabiyey inuu iyagana wax taro laakiin wuxuu uga bilaabay waxtarka weyn. waxtarka weyn buu uga bilaabo marka hore wuxuu u sheegay ninkuu yahay inuu aabbayaal iyo awowyaal nebiyaa ku abtirsado dad tawxiidka rumaysan inuu yahay dad gaala inuu ka yimi. dabeetana intaanu riyadii fasirin wuxuu u sheegay wixii ugu anfac badnaayee dadkani ugu baahnaayeen. yaa saaxibaya sijn aarbaabun mutafariquuna khayruna min illaahi lwaaxid war ma rabbiyo tiro badan baa faa'iido badan khayr leh mise ilaah keliya in la caabudo maa tacbuduuna ilaa asmaa'an samaytumuuha antum wa aabaa'ukum. wuxuu u sheegay markaasi gaalnimadu inay xun tahay ilaahay keligii inay rumeeyaan taasina inay tahay diinta quman. kow waxtarkii markaa wuxuu uga bilaabay waxtar diineed oo aakhiradoodii adduunkooda badbaadinaya. mar labaadna wixii ay ka dalbadeen buu u sharxay. kii yidhi khamri baan walaaqayayna oo wuxuu ku yidhi waad bixi doontaa iyo adigu khamrigaasaad walaaqi doontaa boqorkaad u shaqayn doontaa. kii yidhi anigoo dusha kimisku sida khubus anigoo sida oo shimbira cunayaan ayaan ku riyoodayna wuxuu yidhi adiga waa lagu dilayaa dabeetana waa lagu salbinayaa saasaad ku dhimanaysaa. idan labada nin nebi yuusuf wixii ay rabeen wuu u sheegay wuxuu kaloo ugu daray wax uga anfac badan waxay rabeen oo ah inay salaamaan. nebi yuusuf mar labaad iyo mar saddexaad baan ku noqonaynaa qisadiisa waayo waa meelun baan rabaa inaan taataabto. waxa u yimi walaaladii oo kuwii godka ku riday ahaa muu odhanin haddaanana fursad haystaaye waynanana god kale ku ridaa. isagoo yar bay qaadeen god bay ku rideen waa kaga tageen. dabeetana wixii iyo mashkilada uu soo maray de iyaga u sabab ahaa. godkii baa laga qaatay sidii xoolaha la kala iibsaday nin boqora baa iibsaday gurigii boqortooyadu ku noolaa islaantii guriga joogtay baa hunguraysay waa diiday kufsi oo istidhi waa cararay waa marada ka dildilaacisay albaabkaa lagula kulmay. dabeetana isagiiba haddana la xidhan iyadoo laga markhaati kacay inaanu isagu waxba dhibin ayaa isagii la xidhay. kuwii waxaasoo dhiba u sababo baahan baa u yimi maxay leeyihin qaaluu yaa ayuha alcaziizu ina lahu aban shaykhan kabiira fakhud axadana makaana inaa naraaka min almuxsiniin. way u yimaadeen raashin buu siiyey haddana lacagtii ay siteenna wuu ugu daray waa soo noqdeen. akhiiran markii uu walaalkood kala hadhay yaraa ayay waxay leeyihiin ninkaagan talada hayaa wiilkan yare aabbo da'a buu leeyahay ee midkaayo ku bedel inaa naraaka min almuxsiniin. ereygan baan u jeedaa markaa ereygii labadii ninee xabsiga la galay ee ku yidhaahdeen
ayuu ku leeyihiin yuusuf walaaladii waxay leeyihiin inaa naraaka waxaanu ku aragnaa min almuxsiniin kuwa samafala inaad ka mid tahay dee waa ninkii ay godka ku rideen oo haddana weliba mar dambana waa ku been abuurteen oo markuu wiilka ka reebay waxay dhahdeen in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl isagoo madaxweynaha boqor oo meesha taagan bay waxay leeyihiin in yasriq hadduu yarkani waxaday mid ka horreeyay walaalo alla ahaa baa jiro tuuga waa isagan hor taagan ay leeyihiin mid hore tuuga baa jiray waxaasoo dhan umuu qabanin ee waxbuu tarayay saa ogeed baa walaaladii dhibta u geystay waxay leeyihiin innaa naraaka min almuxsiniin kuwa xabsiga la galay waxay leeyihiin innaa naraaka min almuxsiniin intaa waxa sii dheer nabi yuusuf isagoo xabsiga ku jira oo wax dambiyana aan gelin ayaa boqorkii riyooday boqorkii markuu riyooday ayuu yidhi riyada ha lay fasiro riyadii boqorka dadkii way fasiri garan waayeen adqaathu axlaam bay ku tilmaameen tan fasirkeeda garan mayna bay idhahdeen kii uu yidhi berigii hore waad badbaadaysaayoo boqorka u shaqeeyaa xasuustay markii hore war boqorka arrinkayga u sheeg buu yidhi waxba umuu sheegin oo iska ilaabay laakiin iminka markii riyo la soo qaaday buu xasuustay dabeetana wuxuu yidhi ha lay dira aniga anaa yuusuf u tegaya nin baa halkeer jooga xabsiga oo riyada si fiican u fasiraye aniga ha lay diro ninkii baa yimi oo wuxuu leeyahy yuusufu ayuha sidiiqu aftinaa fi sabci baqaraatin simaanin yaakuluhuna sabcun cijaafun وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون waxaanu aragnay toddoba boqorkii wuxuu ku riyooday baa la yidhi toddoba sac oo naaxnaaxsan oo toddoba liitaa cunayaan iyo toddoba saabuul oo cagaaran iyo toddoba kale oo engegan riyadaa fasir buu yidhi waxaa laga yaabaa dadkii inaan ku noqdo oo ay wax gartaane haddii lagu xidho oo dowlad gaaleed ku xidho oo lagu yidhaahdo ra-iisul wasaare ama madaxweynihii baa riyooday oo riyadii la rabaa in la fasiro oo aad weliba ogtahay riyadan inay ka warramayso dhaqaalaha waddankan iyo sida la yeelayo maxaad yeeli lahayd aduna waa gaaleha maratay naga dah nabi yuusuf muu odhanin war nimankan gaaleed ha iska madhaan ee uu riyadii buu fasiray muu odhanin horta xabsiga iga sii daaya haddaan rabtaan inaan wax idin taro muu gorgortamin xabsiga haddaan ka baxo un baan wax idiin samaynaya ma ku odhanin wuxuu taagan yahay anfacu nnaas inuu noqdo khayru nnaasi anfacuhum linnaas wuxuu u sheego wuxuu ku yidhi 7 sano oo barwaaqo ah idin soo mari doona 7daa barwaaqo ah wixii aa goosataan saabuulkiisa u daaya midhaha intaa cunaysaan mooyaane inta kale sideeda meel ku dhiga waxa ku xigi doona buu leeyahay 7 sannadood oo kaloo abaar ah oo 7daa sannadood ee abaartaa waxaa cuntaan 7daa hore wixii aa beerayseen baa la cunayaa sanad kale ku xigi doona oo maxay ah barwaaqo ah oo nimankani 2 toddobaad un bay u sheegeen sanadka dambe xaguu ka keenay dee haddii 7 barwaaqo tahay oo 7da ku xigaa abaar tahay ka ku xigaa waa inuu noqdaa barwaaqo haddii kale wuxuu odhan lahaa 8 abaar hadday idin soo maraysa maadaama uu yidhi 7 abaara waxa macruufa sanadka ku xigaa markaa inuu khilaafa hada 7 uu yahay nabi yuusuf wuxuu u sheegay 15 sannadood dhaqaalaha waddanka sidii loo maamuli lahaa 15 sannadood ee mustaqbalka ee soo socda iyo dhaqaalaha waddanka kan masar la yidhaahdo sidii loo maamuli lahaa buu u sharxay waxaan u sheegay dhibaatooyinkaa soo socda waxa lagaga baxayaa inay tahay 7daa sannadood ee hore kaydka ugu badan in la dhigto in yar oo la cuno mooyaane 7da abaartee dambana kaydkii la dhigtay in lagaga baxo dabeetana sanad baa ku xigi doona waxay tilmaamaysaa qofka muslimka inuu yahay qof naafica aynamaa xal wartaxal meel kasta uu dego ama se uu tago qofka mu'minka inuu yahay qof waxtara abubakar ayaa mushrikiintii markii ay dhibeen muslimiinta
يصير إسكه هجرود أرض الحبشة يميلون كعكبح مكو كبح برك الغماد ما الله يدهده مركو مريي أيا وحال كل مين الله يدهده ابن دغنة قبل قارة الله يدهده أضي عاقل سلطان ووي وقبل قالت دبتنا أبي بكر بوحكو إلى أين تريد يا أبي بكر حقاتك صعطة أبي بكر بوحو أخرجني قومي من هذه البلدة فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي تلكي باي سو صاري ومكايغا سو صاري وحرب أن أسيح في الأرض سياحة وحلا إلى هذا علماء دي هوري waxay ku tilmaamaan inay tahay qof intuu iska baxay inuu ilaahay uu cibaadeysto meel gaar ah ku soconin iska dhaqaaquno meesha daragtaba ilaahay uu ku caabudo meeshaas kaga tag ay bakar wuxuu leeyahay maka waan iskaga imi waxaanan rabaa inaan iska socdo oo ilaahay dhulkiisa maro oo aan ilaahay caabudo waayo tolkay baa soo saaray u fiirso ibnu daghina waa nin gaaleed oo oday qabiil gaaleed ka taliya wuxuu ku yiri إن مثلك لا يخرج ولا يخرج أديكو كلامه إلى أبي بكر ننتلكي كتجنا متهد نن لا صارنا متهد أدناك وما عنتطينا تسكتكتو نن لا صارنا متهد وايو أبي بكر وحكولي مركا فإنك تكسب المعدومة وتصل الرحم وتحمل الكل وتغري الضيف وتعين على نوائب الحق أبي بكر وبولي يادو حطاي نن دد كفر مرنا وحبها يسنن واحتره وهذا يبولي نن رحمك يا قرابة يا طلق حديد يا حقال بحديدية وهذا يبولي قفك علوس يا مدين أمام مج أما وحلوها يستو قف كرجع عليسك وهذا يبولي مرتدة قف صورة وهذا قف وجر جاردت كنوائب الحق أبي بكر مركا وحكوا السفينية قف بني آدم أو واحترقوحي وقبل شرونا نقبطه وأنا نن مشرك أنك ساقو شيء يعني أبي بكر روحها دتك وقف عبدا له بالشيء كذا باهن كذا ليته كذا علوس كذا مسافر كول بوحتره ساو قد بولا إنك قيمة هالي بني آدم كسيدا وحطران إلا صار معها أنيقه أيا إيما كانت حيويري أي بكر وسوع عليك مكو كاري سوى إرمدي سينا وطا قريش بيسوي ياري وهذا قريش يدي جيسته أبي بكر هو مجنتي عند أبي بكر طابتاري وطابتي عرفتنا مجنته ده بيسوي احترام شري ولي بمركون نكو يهاي نين أضيور ركتالية أبي بكر سيبه مكا كويمي إن كستو مركو وقت جوجي جورجي سورتي سو مساجد يركز سمايستي نين مركو تكادو آدو إلمية بوها لبتنا قريش بكاشتكوتو وحي ينادين أنت إنكي وتجان أبي بكر دمرك يا عرورتي يضطك مو نقف تنينيا هل كاس مو ما أنتو نكو هي قرآن آخرينيا ده هدتك إنك وين والراعي يعني جورجي سهجل بين هذا دو دون ينو كشرو يعني مجنجلية ده جورجي سهجله وحدوري يا مسمى marka uu yimo wuxuu ku yiri Abu Bakar waa laga cabanaya anigana waxay isku ogeyn inaad magantay tahay de tolka inaad dhiftano kuwa guriga iska gal Abu Bakar wuxuu yiri ama aan ku soo celiyo magantaadi dabeetana wuxuu yiri Abu Bakar waradna maganimadaada iska qaado anu mabda'iga waan wadanaya aduguna free batay maanta laga bilaabo xil kuma saara waxaan uga dan leeyahay xadiisku waa dheer yahay laakiin anigu meeshan u jeeda waa maxay nin mushrik ba Abu Bakar wuxuu uga marxaati kacay aygan hatta nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wasalaam intaan mucjizaad kan badani ka muuqanin dadkii ugu horeeyay islaam maxay ku rumeeyeen مثلا dadkii ugu horeeyay islaam waxay noodan kar Khadija kamid ahay markuu nabigu yimi alayhi salatu wasalaam zamiluni isagoo idada وعبسنايا أيه واحد تقول والله لا يخزيك الله أبدا إلهي بان كل نارته اللي ولقاك هوشين مايو وايو قف واحترض هيد بيلاده انت أنا أبي بكر لقيرين لك بكتري خديجة وحي لهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام
oo le waan cabsanayaaba waxay ku leedahay ilaahay baan ku dhaartay rabbi ku hoojin maayo sababtu waxay tahay mid ka waxaysan wax siiya tii qofkii qaraaba xidhiidhiya qofkii culays haysta culayska ka roga qofkii marti soora yani bulshada qof wax ku tarabaad ahayd bay leedahay saadaradeed ma suurtagalaha in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku hoojiyo taasi waxay sheegaysaa muslimiintii hore noocay ahaayeen ambiyadii nabiyullaahi maxamed noocu ahaa abibakar wuxuu ahaa maxaa dadku ku rumeeyeen maxay dadku u raaceen maxaa looga dambeeyey dad waxtara bay ahaayeen bulshada dhexdeeda dad waxtar ku ah waxtarku mid aakhiraha noqdo ood qofka naarta ka badbaadiso dee waa waxtarka ugu weyn nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii u shaqeeyey waxaa ka mid ahaa wiil yar oo yahuudiya wuxuu ka mid ahaa shaqaalihii nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu xanuunsaday waxaa loo soo sheegay nabiga wiilkii inuu buko oo guriga aabihii jiifo dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo baxay wiilkii buu soo booqday dabeetana wiilkii buu la hadlay intuu madaxiisa fadhiistay buu wuxuu ku yidhi war yaa wiilow aslim war iska islaam wiilkii baa aabihii eegay markaa aabihii baa wuxuu ku yidhi markaa atic abalqaasim sala allahu calayhi wasalam yeel waxa uu kuu sheegaya abalqaasim waa nabiga calayhi salaatu wasalaam kunyadiisi dabeetana wiilkii baa islaamay markaasuu nabigu wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar waxaan mahad u celinayaa allihii ka badbaadiyey wiilka ka naarta ka badbaadiyey aanu gaalnimo ku dhimanin yani nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu gurigiisii uga yimi ee uu gurigaa yahuudiga u tegay ilmaha yare xanuunsanaya ama wiilka xanuunsanaya inuu naar ka badbaadiyo aanu ku dhimanin gaalnimada inaanu ku dhimanin waxaa leenahay dadka in wax la taro oo waliba dadku waxtar waxay ugu baahi badan yihiin markay baahan yihiin ama aakhiradooda ha noqoto ama adduunkooda ha noqotee islaamnimada macnaheedu waxa weeyaan waa qof bini aadamkoo dhan nicmada la jeceliyo wanaag iyo khayrka waxaa dhacay ilaahay wuxuu qur-aanka ka warramaya qiso suuratu yaasiin qisada ku jirta mu'minu suuratu yaasiin nin ayaa ilaahay ka warramay ninkaa ilaahay magaciisa inooma sheegin magaalo uu deganaa lama sheegin wax taytalo watay lama sheegin ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wajaa min aqsa almadinati rajulun yas'a magaalada halka u dambaysa nin ordaya ka yimi ninkan magaaladii uu joogay saddex rasuul baa loo soo diray u fiirso qisadan saddex rasuul baa la soo diray laba la soo diray saddex baa lagu wixiiba waa beeniyeen adigu haddaad joogto magaalo saddex rasuul loo soo diray oo saddexdaba la beeniyey maxaad yeeli lahayd inta ugu badan waxa dhahay oo nimanka rasuusha diidaaniga aqbalaya soo ka un ma tirahdeen يعني مسؤولية اسمها صارت ما دام صدح رسول بلديدي هذا ده ماشي صدح رسول لديدي مشغل كبرنان لكن كان إلهي قرآن كلا آخرنا يا إلى قيام الساعة قصدي سوى حلوه قري وقف اسكت دين ومسؤولية قاضي كافة اسمه أوران صدح رسول بماشي شوقي وحو قرتي إن سجنا حل ساري وغيران إنه ضدك كوي هذا وهو يعني من كان راعي سبب تكون راعي سنة واردي شقية وحلي يا قوم اتبعوا المرسلين والرسل الراعي بولي وهو ما هي سببته اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لا بس سببات بور راعي بولي نمكن روح بيدك مرة بعد مرة هوري بني آدم كهذا يقول هذا يصير هذا نكر يدقالو كوجود دونيا يكرسو كوجود دونيا وحبو أديك كاد دونيا هذا السنة هذا وحلقة بينات هرا وراعي وتلاقي نكر دنتي سوتا مركه وحلي والرسل شو مركه هرا وح بيدك مرة ربطه وامر مركه الله بعدنا محكوت الماء وهم مهتدون وهنسين الراعي قصة ما شرحيه لكن وحاول قدر لا أنت الضمبة ننكي دتكي وحلي الرسوش الراعة واكا ما يقبلين يسوي توحيد كيسيبو قرتي وحلي أنون من كاسي حق بيشقي وان راعي قصة كم مقطع والد لي ننكي والد لي إلهي بقى ورمي مركو دنتي سيدو فكري مركو دنتي آخرة قبطي سيدو فكري بقى إلهي رو شيء
حك فكريا قيل ادخل الجنة بإلهي لي وحل يدور جنة قال قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين تلكي ولي وناك بول الراد عينيا وحلي الله تشعلان لهاي إني تلكي أقادان وحن معي إلهي سياسة دبي ويقول رافي إيانها إسلاماني يعني عقله بني آدم كو انت بدنا أرسو بك فكرة وكوي وحاكو سمياد ونا آخر ودن لكن إيقول للدلي وقردر الودلي وصدح رسولي بينيين ووحو يري حق هيدو قردر الودلي هدنا أيها هدنا وحو كفكرية ورمنكي يا وانا قان حلي وشيغا يقول الرعاني marka waxay tilmaamaysaa qofka mu'minka inuu yahay dadka qof khayrka la jecel dadka qof raba inay wanaaga qaataan khayrka la jecel hadaba qof kasto muslima xilka saaran wuxuu yahay inaad noqoto qof bini aadamka khayrka u horseeda haduu yahay mid adduunyo iyo haduu yahay mid aakhiraba dunida dadku waxay ku islaaxi lahaa say nabad u heli lahaayeen kuwada ducafada si loogu gargaari lahaa kuwada jaahilka saa wax loo bari lahaa kuwada aqoonyahanka saa loo tilmaami lahaa ummaddu markuu qof waliba xilka isa saaro oo contribute kareeyo wanaaga ayay ummad jirta noqotaa ummadda marka qof waliba uu iska dhiga cadam mas'uuliyeen aan isaga waxba saarayn qol kalena laga sugay inay wax hagaajiyaan way jabtaa waana Soomaalidu say hadda u badantay dad maqan oo inaan garanayn meel ay ku maqan yihiin baynu sugaynaa wadankeena iyo dalkeena iyo dadkeena bayna hagaajiyaan inaguna waxaanu rumaysanay qof waliba inaan isaga mas'uuliyad saarayn ilaahina wuxuu inoo tilmaamay quraanka ninka saddexda rasuul iyadoo la diiday rumaysan in mas'uuliyad saaranta xilisa saaray waliba meesha lagu diiday aan joogin ee ka yimi min aqsal madiina magaalada halka ugu dambaysa sifadu ku yimi haddana ahayd qof mas'uuliyadda xambaarsan oo degdegaya إلهي وح علامتنا ومية رجل ولا تنكيري رجل بالغت الماما ويسعى نرد يوم بوها وحنوبة هنا مركا أيها الأحبة ضد واحترين النقطة نبينا عليه الصلاة والسلام وحت الماما دا إن واحد براكتيكال ومدو قبته هذا تلمام تأون نبى النبي قويمي شاقنا يدب وحراعنا ينوباهن يحي دبتنا الروايات كقاركودنا النبي قايد بيلي الروايات كقاركودنا نكلا يلي مهما تكون نبى وحلي ورهب لطك والغيا بين تسقى وحكيها شو نبي وحبا ما هي مركا عليه الصلاة والسلام عبد المامية نكن أنا وحبا طريق كريم لكن مو أردن وحبا كطريق كريم ما يسكتك إيه وحلا يدب الهبل لطك waxaa laga yaabaa inaad ka hesho waxaad rabtay hebelkiibu u tagay dabeetana dantiisiibu ninkii kale u fuliyay markaas nabiga loo sheegay nabigu wuxuu yiri man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ili hadithki muslim man dalla ala khayrin qofka dadka khayr u tilmaama ninkan waxa loo tilmaamay waxbuu ku weydiisto waxa tiri waxa ma hayo laakiin waxaad ugu dartay war bal hebel siimar waa laga yaabaa inaad ninka كهلي كرتو مجرد وقت المامت هذا وحبا ما بحنين تلمام تاسي هدي يقول كنتو نبي يقول من دل على خيري وناك عدي دتك وقت المامتا فله مثل أجر فاعلي كيس ميجي بالضمت وكيس مينا أجر كيسي وليه أدونا أجر ولك مكاس ميجي أجر كيسي بعد لا إذا أما نفع أدون هالنقض أما نفع آخرة هالنقض قفك مؤمن كي وينو نافع نقضه وين أدمرك هرك فكر يسادتك السداد وحطار الهي علي بن أبي طالب أي نبي عيدا أوليبي تقال بالله قالي خيبر ما شاء الله يلاحظه لبدي مع الموضوع هره ولا فرنك رواية وقت كذا إذا قال كي ما نصدحات دي أي نبي شاقي عليه الصلاة والسلام من إلهي شعلي إلهي رجعل إنه رايد اللودي بدوره علي حنوصر يا الله يا نبي قاود عيوك تفوا بكسدي علي بالله يدعيدك هجامي دجال بقوليه هذا شان دجال قال لي سبحات كل دردار ملهايت لما كويه كاب أحسن من سوماها زفي عن دجال كوجل
وهي النبي وحو كلا دردار فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. النبي كلا دردار إلهي بان كو دارته mid quro kamida gaalada in ilaahay ku soo xanuuniyo ayaa kaaga khayr badan geelakiisa casas yani ina wadanka furataan oo qaniimo iyo xoolo badan heshaan oo tidaahdaan gaaladiina waa laynay xoolana waa ka soo helay waxa ka faa'iido badan buu nabigu leeyahay mid kamida inuu diinta qaato. marka asalka qofka mu'minka xataa hadduu goob dagaal joogo dadka la maaha hadafkiisu dadka xoolo ka hel maaha هدفكيس وادين تانين يفافتو هدفكيس وينو ضد كان نار كبدباديو قف جبري يهدو كاسو أربع ما حد طلع له قف دب كل جو ولا لي يهدو كاسو أربعة وحكى لك ما تفكرتين كو واحد كيف فكر له هاي بحي أنا بختيسه ما يصير الله هاي وهربت كل واحد جبري وسيس عضايا شيء وكبارة بلي وحكوسي جيران كان قارسيس عادي وعقفر يعني منتالتي قفك مسلم كي نقالا معها dadkan inaad xoolo ka hesho maaha mentaalitiga qofka muslimka maaha dadku inay dhintaan mentaalitiga qofka muslimka waxa weeyaan dadku inay diinta gaadho inay dadku badbaadaan adduunkoodana badbaadaan aakhiradoodana badbaadaan sida ogeed buu nabigu wuxuu leeyahay qof qoro ku hanuuna kaaga khayr badan inaad gaal cascas hesho wahlana markaa النبي عليه الصلاة والسلام مرة كنت المامي أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أما خير الناس أنفعهم للناس ضدك وحا ألا وجه عليك ضدك وحتر بدن أما قلت المامي ضدك وحا وخير بدن كضدك محي وقول نفعك بدن له أما النبي عليه الصلاة والسلام وحا قلت المامي مثلا إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. إلهي سبحانه وتعالى يا ملائكتيس يا السماء واحد دقن يا دولك واحد دقن حتى قرآن شد قدك كتشرته أما كلونك بد كتشره وحي كصلينا يعني إلهينا أن حريستي سوسينا إياه مخلوقات كنا إلهي بي وحي ويديني يا محي إلهي ندم بقوة دافعونا حريستو على معلم الناس الخير قفك ضدك خير كبره أيها الأحبة صلاة دي بلادي ما يبان في ليها سو كوبينا وحي نكو كوبينا نولش وينت كونتريبيوشن كو يالتا نولش وينت قف واحترى النقطة نولش ما هينت قف ديرادا النقطة oo wuxuu cunay iyo wuxuu xoogsaday tiisa ka fakarayna noqoto ma qofka muslimka dhaqanka lagu yaqaan marka waa maxay waa qof waxtara oo waxtarkiisu sida anbiyada ilaahay uu ka waramayo ilaa ay gaalada ay gaadhayaan inaga muslimkii baba inuu anficlaan maxaynu gaal anfacna muslim oo dhanka kaalaya intii kula dhulka ahayd ama kula dadka ahayd ama kula jaarka ahayd ama kula deganayd ayana fiicinu gaadhaynin إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى إنه دينتنا ينفهمسيه إن جاي لك قمناطة ذكر قمناطة وغيره كوا واحترى سيد النبي والشيخ عليه الصلاة والسلام إن ربنا جاي له وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.